daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar mobilka furo daawarkii ugu dambeeyay subax wanaagsan daawadayaal maamulka gobolka banaadir oo cilaamiyay banaanbax aad u weyn isla markaasina aad u gilgilaya magaalada muqdisho loogana soo horjeedo dadka xasuuqa ka geysanaya ee ah ururka al-shabaab isla markaasina dhinac looga soo wada jeesto gabi ahaanba ayaa lagu ballamay maalinta khamiista ay soo socdo maamulka gobolka banaadir oo qorsheynaya in shacabka 3 milyan ee muqdisho ku nool ay hal meel isugu imaadaan isla markaasina ay muujiyaan nacaybka ay u qabaan ururka al-shabaab maamulka gobolka banaadir ayaa iclaamiyay in maalinta khamiista uu magaalada muqdisho ka dhici doono banaanbax weyn oo looga soo horjeedo al-shabaab oo dhawaan qarax xooggan ku geystay magaalada muqdisho isla markaasina dad aad u fara badan oo rayid ah halkaasi ku xasuuqay isla markaasina dhibaato xooggan soo gaarsiiyay مسؤولين كتيسان قبل كبنادر أيها شيء إن بنام بحا أي كخيب جلي دوران قيبها بوشدا لغو قبن دون تعالى درجة كتحصون سلامر كاسنا حال كاس لغو موجين دون درين كودو خوف كاستا أو كحانون صغير قرحي معلين دويد لغو حسوقي دميار لي وإني كسو قيب كلان أيها بإن إسلامر كاسنا أي موجيان دارين كودا إسلامر كاسنا أي قرب استاغان ولا له ذي الحسوقي dibadbax weyn waxa la yiri dibadbax weyn waxay reer muqdisho ku muujinayaan midnimada iyo in meel lagu soo wada jeesto ciribtirka ururka al-shabaab iyo ka hortagga falalka guracan oo argagixisada ku xasuuqayaan shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri mas'uul ka tirsan maamulka gobolka Banaadir isla markaasna warbaahinta la hadlayay ugu yaraan 9 qof oo shacab u badan ayaa ku dhimatay in ka badan 150 kalena way ku dhaawacmeen qaraxii xooggan oo maalmo ka hor ka dhacay ex control afgooye magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi 2 cisho kadib sheegatay ururka al-shabaab kadib markii hay'adda nisa ay ku eedeysay dal shisheeye isla markiiba ururka al-shabaab ayaa soo booday oo sheegtay ururka al-shabaab ayaa markii ay qarax yar ay geystaan durbadiiba saacad in ka yarba soo sheegan jiray waxa arintaasi la leeyahay far ayaa ku gudan maadaama 2 habeen ay ka aamustay markii labaadna ay sheegatay taasi oo la doonayo in la yiri in ururka al-shabaab lacag la siiyay isla markaasina dal shisheeye gacan saar leedahay oo loogu talagalay arqadeenta dadka Soomaaliyeed isla markaasina horumarka loo diidan yahay ururka al-shabaab ayaa sheegay in wadada laga dhisayo magaalada muqdisho ee afgooye dadka dhisaya ay ugu talagaleen taasi macnaheedu ay tahay wada kasta oo la dhisayo oo shacabka ku danaysanayaan ama shacabka loogu danaynayo inaysan raali ka ahayn banaanbaxan ayaa ujeedadiisa ay tahay in meel looga soo wada jeesto ururka al-shabaab isla markaasina doonaya inay shacabka kumanaan qof ay u laayaan haddaba haddii aad muqdisho joogtid ayaa la yiri waa inaad ka soo qayb gashaa banaanbaxaas isla markaasina mara guduudan aad ku xirataa madaxa si aad u muujiso dhiigii walaalihii la shubay banaanka lagu daadiyay isla markaasina la dilay oo adigana aad u muujisaa dhiigaaga isla markaasina meel looga soo wada horjeestaa si kastaba ha ahaatee arrintani ayaa khamiista la filayaa inay dhacdo fadlan nala joog oo daawarka ugu dambeeyay gudoomiye mursal oo hal arin u ballan qaaday madaxweynayaashii hore isla markaasina ka soo horjeestay madaxweyne farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xal gurigiisa kula gaar ah kula qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed kulankan oo sidoo kale qayb ka ah xubno ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan sidii ugu habboon ee loogu guulgaari lahaa caqabadaha siyaasadeed ee haatan dalka ka jira isla markaasina iska soo horjeedo gudoomiye mursal ayaa u ballan qaaday in siyaasadda dalka la hagaajin doono isla markaasina ay isku soo dhawaan doonaan sidoo kale hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran afhayeenka golaha shacabka kala hadlay arrimo ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka iyagoo uu gudbiyay cabashada ku aadan qodobka muddo kororsiga ee ku jira sharciga la ansixiyay isla markaasina ay qayladaan xooggan ay ka keeneen taasi oo la doonaya in wax uu ka qabto Mr. Mursal ilo ku dhow kulankaasi ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in gudoomiye mursal uu ballan qaaday madaxweynayaashii hore in meesha laga saarayo qodobkaasi ee xil kororsiga isla markaasina ay soo dhaweynayo codsigooda labada madaxweyne wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la isku raacay in si wadajir ah looga shaqeeyo horumarka dalka gaar ahaan doorashooyinka soo socda ee dalka 2020 waxaa muuqato in xisbiyada mucaaradka ay inta badan doorashooyinka xooga saarayaan inta badanna ay ka walwalsan yihiin xil kororsi ayagoo aan inta badan la arkin inay ka hadlaan xaaladaha kala dalka jira inta badan ayaa ayagana mucaaradkooda waxaa lagu eedeynayaa kaliya inay fiirsanayaan doorashooyinkooda iyo sidii ay xil weyn ku heli lahaayeen waa mucaaradka ayaa ayagana soo mucaaradaya
waa kulankii ugu horreeyay ee labada dhinac yeeshaan wuxuuna muujinayaa inuu xiriir cusub u bilowday madasha xisbiyada qaran iyo guddoonka golaha shacabka islamarkaasina kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo inuu kasoo horjeeday in muddo ah in dalka uu ka dhacdo doorasho qof iyo coda islamarkaasina farmaajo uu ku shubto guddoomiyaha ayaa hadda waxa uu ansixiyey sharcigii doorashooyinka in muddo ah laga doodayey si kastaba ha ahaatee waxa ay diidan yihiin madaxweynayaashii hore qodobka ku jira oo sheegaya muddo kororsi taasi oo wadnaha farta ay ku hayaan haddii farmaajo uu kororsado iyo haddii baarlamaanka ay kororsadaan shirkan ayaa sidoo kale kusoo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay hogaanka xisbiga dalka iyo madaxda dowladda Soomaaliya ay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ay ku eedeeyeen inay ka shaqaynayaan muddo kororsi hor leh isla markaasina caqabad ay ku tahay haddii wadanka muddo kororsi uu ka dhaco waa sida hadalku dhigeen sagaalkii qofood ee ka tirsanaa ururka al-shabaab ee ku jirta haweeneyda isla markaasina 180 qofood in ka badan ku xasuuqay guddiga magaalada muqdisho qaraxyo soo abaabulay u qaabilsanaa dilalka qorshaysan isla markaasina markii ugu dambeysay lagu qabtay ayagoo haweeney soo xulay xildhibaanadii tobanaad isla markaasina lagu qabtay ayaa iminka waxaa lagu xukumay dilal toogasho ah haweeneyda keliya ee ku jirta raggaas ayaa waxaa lagu xukumay madaxa ha ku furto oo ah xabsi daa'im ragii kale la socday oo lagu xukumay ayagana dil toogasho ah isla markaasina lasoo taariyay diilka maadaama ay 180 qofood in ka badan ay xasuuqeen sidoo kale safiirkii imaaraadka oo la kulmay ninka u qaabilsan qaramada midoobay ee Soomaaliya James Wama zaade warar dheer ayaa kasoo baxayo wasiiro iyo xildhibaano ka hirtamaya xafiisyada dowladda federaalka Soomaaliya in loo magacaabo dad ay ayaga jeebka ku wataan qodobka ugu horeeyo saraakiilka sare oo ka tirsan al-shabaab iyo xubno kale oo xukun dilaha lagu riday isla markaasina maxkamadda qalabka sida ay haweeney ku jirta ayadana xabsi daa'im ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun isugu jira dil iyo xabsi ku riday xubno lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab dilal badan oo aad u fara badan 180 ahna ka geystay magaalada muqdisho isla markaasina dhammaantood wada qiray qaarna lagu soo qabtay ayagoo iminkaasi dilaya dad dhageysiga dacwadda xubnahani oo maalmo badan socotay ayaa ugu dambeyn maxkamadda ciidamada xukun kala duwan ku riday 9 xubnood oo lagu helay in ay al-shabaab ka tirsan yihiin waxaana 4 ka mid ahaa xubnahaasi xukun lagu riday iyaga oo maqan isla markaasina inta kalena ay xaadir yihiin kuwa maqan ayaa iminka lagu raad jooga isla markaasina sawiradooda la haayaa ayagoo magacyo been ah sheegtay isla markaasina xukun maxkamadda ay ku sii riday asaatay haddii lasoo qabtana si toos loo dili doono xubnaha xukunka dilka lagu xukumay waxaa ku jira maxamed xaaji axmed oo ku magac dheer ilka case kaasi oo lagu eedeeyay inuu madax u ahaa amniyaadka dadka qaarijiya ee al-shabaab ee magaalada muqdisho isla markaasina gacantiisa ay ku baxday in ka badan 180 qofood oo kuwaasi isugu jiraan dad dhalinyaro haween iyo rag waaweyn odayaal ah waxaa sidoo kale dadka xukunka lagu riday ku jiray haweeney la sheegay inay ka tirsaneyd dagaalyahanada ururka al-shabaab waxaana haweeneydaani lagu xukumay xabsi daa'im oo ah madaxa ha ku furto si kastaba ha ahaatee haweeneydaani ayaa u qaabilsaneed inay ayagana soo basaasto isla markaasina goobaha ay tagtay basaas u samayso bistooladahan ay u qaado isla markaasina dhalinyarada markii ay soo maraan baraha controlka ah kadib u dhiibto isla markaasina markay dilka ay geystaan dhalinyaradaas mootada ku baxaan sidoo kale xukunka lagu riday haweeneydaani oo ayadana xabsi daa'im lagu riday xukunka xubnaha al-shabaab lagu helay ayaa sida tan u dhacay lambar 1 Salim Saciid Maxamed Xaaji Axmed Maxamed Hashim oo maxkamadda joogay ayaa lagu xukumay dil toogasho ah isla markaasina kiiba min 100 rasaas lagu dhufto maadaama shacabkii hore u gumaadeen 2 Sharmaarka Cumar Axmed Faarax Iidle Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Ramadaan Cabdiraxiim Mursal oo maxkamadda ka maqan xukun dil ah toogasho ah lagu riday isla markaasina xamar ama gabi ahaanba Soomaali laga baadi goobaya haddii mar la arkane si toos loo toogto 3 فاطمة حسين علي عباوي oo maxkamadda joogtay waxaa lagu xukumay xabsi daa'im waa haweeneydii ee al-shabaab ka tirsan isla markaasina dhalinyaradan weelinaysay sida muuqaalka aragteen 4 Cabdinaasir Axmed Cabdiqaadir oo maxkamadda ka maqan waxaa isna lagu xukumay xabsi daa'im hasaatee haddii la arkane asagana si toos loo soo qabto xubnahan lagu xukumay dilka iyo xabsi daa'imka ayaa lagu qabtay howlgal ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxa ayna xubnahan qaarkood khirteen in dilal badan ay geysteen isla markaasina si caadi u qorteen inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab isla markaasina mid walba oo markii la qabtay uu la soo booday aniga duruuf ayaa ii geysay waa leegu qasbay dilkaasi aniga goobjoog ayaa ahaa oo waxaasi bistoolada ayaan qaaday ahaatee taasi waa laga diido waxaa la yidhi gala cagaarta madaxweyne farmaajo oo haysta hal fursad oo xukunka kusoo laaban karo
fursadaasi oo la shaaciyay isla markaasina la yiri madaxweyne farmaajo haddii uu qodobo kamid ah qodobada soo socda uu sameeyo isla markaasina kursiga oo kusoo laabo doono ahaatee haddii uu arrintaas oo samaynin waa caqabad weyn ayay kusoo noqonaysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxaa hadda haysta fursad weyn oo xukunka kusoo laaban karo haddii la gaaro 2020 horaanteeda xitaa mucaarado ayaa dowladda ay ka wajahaysaa siyaasiyiinta iyo xubno ka tirsan golaha baarlamaanka balse tallaabadan loo farmuuqay hadduu qaado way taageerayaan oo isla markaasina dhammaantood way ku doofaylayaan laba arrin oo horey ayuu u waayay taageero badan mid waxay ahayd dhibaatadii qalbi dhagax oo Ethiopia loo gacan geliyay taas oo dad badan ay ka caroodeen isla markaasina halkaasiba boqolkiiba 40 taageero oo ku waayay qaraxii sooba ee ka dhacay 14 Oktoobar 2017 waxay ahayd mid kamid ah imtixaanadii ugu cuslaa ee dowladda Soomaaliya shacabka ka qaadeen sida ay kaga jawaabtay rabitaanka shacabka isla markaasina halkaasi oo ku waayay boqolkiiba 50 in ka badan shacab ah iyo mucaarad aad u xoogan oo dal iyo dibadiisa joogaba hadda waxaa u furan madaxweynaha inuu sameeyo isbedel xoog leh oo dhanka amniga saraakiisha qaabilsan la sifeeyo kuwa laba afleyda ah ee shabaabka la shaqeeyo shacabka xamar oo si dhab ah loo soo dumo isla markaasina wadooyinka xiran la furo iyo awoodda dowladda Soomaaliya oo dalka laga celiyo isla markaasina gabi ahaanba ay noqoto mid shacabka aan la caburin amnigana wax weyn laga bedelo banaanbax khamiistii dhacaya waxay dowladda Soomaaliya u haysataa inay ka shidaal qaadato shacabka iyo sida ay ugu soo banaanbaxaan dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab banaanbaxaas ayaa waxaa la leeyahay waxa uu soo socdaa khamiista soo socota isla markaasina waxaa la doonayaa in ay ka shidaal qaadato dowladda federaalk Soomaaliya qabiilka iyo qaranka oo la kala duwa waa tabta ugu muhiimsan ee awoodda shacabka lagu heli karo oo dowladana ay kaga adkaan karto ururka al-shabaab ayaa la yiri si kastaba ahaatee qodobkani ama warbixintan xasaasiga ayaa waxaa la leeyahay dhammaan dowladda federaalk Soomaaliya madaxweyne farmaajo haddii uu sifeeyo dadka laba afleyda isla markaasina shabaabka la shaqeeyo amnigana gacanta ku hayo haddii uu gabi ahaan boqorta uu kaga xiiro isla markaasina uu keeno rag cusub oo fresh isla markaasina red hore aan lahayn halkaas waxaa laga yaabaa in Soomaaliya ama boqolkiiba boqol ay dadka Soomaaliyeed soo taageeraan sidoo kale haddii uu qalbi dhagax isla markaasina ka raali geliyo oo dalbado waxaa laga yaabaa inuu taageero badan helo si kastaba ha ahaatee wadooyinka xiran haddii uu nadiifiyo isla markaasina amniga wax ka bedelo oo qorshe sax oo la yimaado taasina waxaa u suuragelayso madaxweyne farmaajo inuu mar kale kursiga ku soo laabto haddii uusan intaas samaynin waxay ka tahaagiri calaa casha oo ay ka soo baxdo tin